Wadankee ayaa ah dadka ugu tirada badan Muslimiinta adduunka oo dhan? Sacuudi Carabiya, Bakistan, Masar ama Nigeria? Hagaag, midkoodna ma ahan. Jawaabta saxda ah waa Indonesia. Indonesia waa qayb ka mid ah jasiiradaha loo yaqaano Malay Archipelago ee ku yaalla Koonfur-bari Aasiya. Sidoo kale waa wadanka ay ku badan yihiin jasiiradaha adduunka ugu ballaaran. Waxaa jira ilaa 17,508 jasiiradood oo ay ku jirto Java, oo ka mid ah gobollada ugu dadka badan dunida. Gelitaanka Islaamka ee Indonesia way adag tahay in la go'aamiyo taariikhda uu Islaamku bilaabay inuu soo galo Indonesia. Taasna tixraacyada ayaa odhanaya ganacsatada Muslimiinta ah waxay aasaaseen xarumo ganacsi oo naftooda ah dhanka xuduudda Sumatra iyo jasiiradda Malaysia waqti hore. Laga yaabo in laga bilaabo dhammaadkii qarnigii 2 iyo kii 3. Ganacsatadii horena waxay ka yimaadeen jasiiradda Carbeed, gaar ahaan Cumaan, Xadramout iyo xeebta koonfureed ee Yemen. Waxay qaateen xarumahoodii ugu horreeyay xeebta galbeedka Sumatra waxayna u bixiyeen Sandara. Buugaagta taariikhiga ah qaarkood waxay kaloo sheegaan in qaar ka mid ah ganacsatada Indonesia ay yimaadeen Baghdad maalmihii Cabbaas Caydruus iyo Haaruun al-Rashiid. Markii ay soo noqdeenna ay xambaarsanaayeen baalashooda caqiidada Islaamka. Markii ay wadankoodii imaadeenna wicitaan baaxad leh iyo gudbinta xaqa ayay u istaageen. Aragtidan saddexaad ayaa odhanaysa in 2 nin oo Carab ah oo ka tegay magaalada Dimashq ee caasimadda Syria ay ganacsi ahaan u aadeen magaalooyinka Malaysia iyo Indonesia iyo dhammaan Koonfur-bari Aasiya. Waxaana sanado ka bacdi dhacday in reer Indonesia oo dhami ay qaataan diinta Islaamka. Horaantii qarnigii 9aad iyo kii 15aad, diinta Islaamku waxay bilowday inay si dhaqso ah ugu faafto bannaanka gobolka. Culummada iyo qabiilooyinkii Muslimiinta ah waxay bilaabeen inay iska caabiyaan maamulka Buudhistiga ee Java.